waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland wasiirka macdanta mas'uuliyiinta kale ee qaranka ee la socda waftiga shacabka qiimaha iyo qaalaha ee ka soo qayb galay xafladan hogaamiye dhaqameedyada madaxda kale ee laamaha dawladda ee gobolka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa ii sharafay inaan halkan ka hadlo runtii aniga oo ka turjumaya hay'adaha qaranka ee horumarka ka shaqeeya waxaan doonayaa inaan tilmaamo muraayadda cagaarka ama lensiska cagaarka in wax lagu eego weeyaan intii xukuumadda uu hogaamiyaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi dhalatay mashruuca ugu weyn ee wadanka ka socda waa mashruuca bridge-ka isku xidha magaalada Boorama iyo Camudwey ninka keenaya mashruuc kale ha sheego horumarka ayaa inoo calaamada maalintani waa maalin qaran waa maalin aynu ognahay aasaaskeygi iyo udubkeedii inay ka qayb galeen haldoorkeennii gobolku 8 sano ka hor odayadii uu ka maartay hogaamiyayaashii Xaaji Abubakar Xaaji Daahir oo cilmi Sheekh Muuse Goodaad waxay ahaayeen hogaamiye dhaqameedyadii lafdhabarta u ahaa ee aasaasay Soomaaliland waxaynu ogeen 93 markii labaad ee la amba qaaday waxa weeye biidmillaahi tacaala waa maalin qaran waa maalin la wada leeyahay dadka yiraahda iyagay ku kooban tahay dhibtu si kale wax u dhiga alxamdulillah waxa weeye madaxweynaha waan halkan uga hambalyeynaa madaxweyne ku-xigeenkuba waxay hadhiya habeen ku fikirayaan sidii aan u bilaabi lahayn u dhameyn lahayn maadaama aan hay'adii wadooyinka ka mas'uulahay wadada isku xidhi doonta hadii alle ku roon yahay Djibouti iyo mataqaana Boorama biidmillaahi tacaala waan ku guuleysan doonaa horumarka ugu weyn bay noqon doontaa bridge-kuna dhawaan uu dhamaanaya ilaa 3 bilood gudahood uu ku dhamaan doonaa biidmillaahi tacaala horumarka aynu aragno waxa wanaagsan aynu aragno waxa xun waxba yeelano arkin boqol qof oo noqdo xildhibaan waxba ma taraan horumarka ayaa inoo calaamada gobolkeena sidii aan horumar ku gaari lahayn baa ugu muhiimsan Maxamed wa alihi wa sahbihi wa sallam ugu horaan maayirka magaalada ama degmada Dila maayir ku-xigeenka madaxda kale ee degmada duqeyda Cuqaasha odayada haweenka iyo dhalinyarada iyo maamulka dawladda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa inoo sharafay inaan ka soo qayb galno maanta xafladda iyo munaasabadda 18 May oo ah maalin xus qaran runtii waa maalin la wada leeyahay waa maalintii la unkay Soomaaliland ee dhidbada loo taagay shirkii Burco 18 sano ka hor runtii waxa jiray maalinta haldoorkii odayadii gobolka Awdal u dhashay oo ayaa dadkii ka mid ahaa asaasay Soomaaliland ee dhidbada u taagay oo waliba hormoodka ahaa waxa kale oo jira 93 waa ogeedeen inaanu mar labaad ambaqaad lagu dhisay Soomaaliland oo gogol loo fidiyay markii duruufo badan yimaadeen oo dib loogu dhisay mantaqana Soomaaliland Boorama runtii waxa weeye waa maalin qaran oo la wada leeyahay waxaan yar dul joogsanayaa horta nabaddu cid walba waa u dan dad badan oo waxa jira curfiga had iyo jeer abuura mantaqana colaadaha oo wadaagta waxaan uga baahanahay inaynu nabadgelyo ku wada noolaano dadka waxa ka dhaxeeyana si nabad looga wada hadlo oo wanaagsan ayaa wanaagsan waa inaynu baranaa wadada loo maro dawladda marka laga doonayo waxyaabaha laga tabanayo waxa loo marayaa wada nabadgelyo wada siyaasadeed oo tab iyo la isticmaalayo talaba dadku haday yeeshaan tala wadaag ayaa ay meel ku gaadhaan wadankeenu wuxuu u baahan yahay horumar waxa fiican inuu ka hadallo wixii horumar aan u baahanahay
annaguna mas-uuliyiin ahaan dawladda haddii alla ku royay dadka waa inaan xidhiidhino waxaynu ognahay intii dawladda uu garwadeenka ka yahay mudane muuse biixi cabdi dhalatay mashruuca ugu weyn ee waddanka laga bilaabay ee ka socdaa waa mashruuca bridge-ka u dhaxeeya Boorame iyo haddii alla ku roon yahay iyo Camuud waa mashruuca ugu weyn mashruuc kale oo ka weyn ma jiro waa mashruuc isaguna dhaqangala hadda meel fiican maraya oo bisha 9aad dhamaan doona waxa kale oo bilaabi doona bidmillaahi tacaala wadada u dhaxaysa Boorame iyo Djibouti waa ogtihiin wadada dhibta ay leedahay sidaan ugu xidhanahayna waad ogtihiin dawladda jamhuuriyadda Djibouti sidaan ugu xidhanahay baahida aynu qabno waa lifeline-keeni haddii ilaahay yiraahdo oo wadadaasi dhisantana meesha waa 240 kilomitir waxay ku gaari waxa lagu gaari doonaa wax dhowr saacadooda waxaana isbedeli doona nolosha gobolkeena oo dhan laga bilaabo heer degmo heer gobol heer maaragtay meel walba degaan aad bay isku bedeli doonaan waxa wanaagsan inaynu ka hadalno waxa horumarka ah inaynu ka hadalno horumarinta nabadda inaynu dawladda la shaqeyno wixii aynu uga baahanayna si wanaagsan oo hufan oo nabadgelyo ku jirto oo asluubi ku jirto oo dhaqan wanaag ku jiro aynu u gudbisano ayaa loo baahan yahay dadka waxa weeye acyaanta ah odayada ah iyo waxgaradka guud ahaanba maanta dadka adduunyada si fiican u tashada tala wadaag leh aan arrinkoodu baahsanayn ayay wax u qabsoomaan bidmillaahi tacaala waa ku guulaysan doonaa nolosha iyo bantaqana mashruuca biyuhuna ilaahay idankiis waanu ku guulaysan doonaa wixii kale degmadu u baahan tahayna waa loo raadinayaa sidii horeba maalintii dhaweyd u ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka wadada u dhaxaysa halkan iyo ruqina si fiican baa loo dhisi doonaa anu mas'uulkii wadooyinkaan ahay marka bidmillaahi tacaala aad iyo aad baan inagu mahadnaqayaa waxa kaloon halkan uga hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici madaxda kale qaranka waan isku hambalyeynaa waxaynu leenahay bisha barakaysan mantaqana maanta xafladda ku dhacday dambigeena ilaahay ha dhaafo dadkeenana qulubtooda ilaahay isku soo jeediyo nabadda iyo horumarkana ilaahay noo adkeeyo sheego mashruuca ugu weyn mantaqana ugu ballaaran ee waddanka laga bilaabay inta dawladda cusub ee hadda dhalatay uu hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenku waa nasiib wanaag inuu gobolkan noqdo bridge-ka isku xidhaya magaalada Boorame iyo jaamacadda Camuud waxa kale oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa professorka iyo tiimka kale sida professor Diiriye iyo mantaqana shaqaalaha kale ee finance-ka oo iyaguna waa mashruuc anaga noogu hawliyar ee noogu nidaamsan marka hadda iminka anagu qiimihiisa hadaan doono hoostaanu yar dhiganaynaa dadka qaar baan lahaa iminka markaan dawladda hoose joogay ku geersugayay baalkan waa 2 milyan laakiin waxa ku jirta daacadnimadii iyo isagoo oo si fiican yani arrimaha looga joogo aad baan jaamacadda ugu madnaqay waxaan ilaa mashaariicda kale fulinaysaan dadka khuseysay stakeholders kuma saaso kala noqdaan aadna waan ku mahadnaqanaa madaxweyne booqashadaada waanu soo dhaweynaa